iyadana ninaan saaxiibanahay walaal ayaa wuxuu igu yiri nin sheekhoy saaxiiba yihiin ayaa wuxuu ku yiri magaalada Muqdisho ayaa wuxuu yiri waxaan ku lahaa dukaan suuqa Bakaara waxa ii timid buu yiri hooyo Soomaaliyeed oo ku qiyaasay 40 iyo xogaa jir oo gaari gacan sidata markaas waxa igu tiri uu yiri walaal wax lagu qaado ma haysaa way shaqaysanaysaa gaari gacanka ku shaqaysanaysaa wuxuu yiri waan fiiriyay wax la ii qaado markaa ma aan haysan dukaankayguna saa uma sii weynayn laakiin marka aan fiiriyay rafaadka iyo macluusha ka muuqata gabadha iyo gaari gacanka ay sidato on qiyaasi karo waxa u geeyay inay gaari gacan Bakaaraha ku dhax wado marba dukaan istaagto tiraado kiish sankara ma ku qaada aan garan karo waxa ku qasbi kara ayaan saamarkan u fiiriyaa wuxuu yiri waxaan isiri bal gacmo maran yeysan ku laabane waxaan iri labadaas kintaalo sonkorta ah midna burka yahay inta dalkan ma aragtay iga qaadid halkaas gee wuxuu yiri waan la saaray ana u saaray gaari gacankii anoo wali ka naxsan ayay dhaqaaqda laba tilaabo markay ka qaaday la dhacdo labadii kintaal ee gaari gacankii waa naxoo yiri waa ka daba tagay markaasaan ku iray walaal iska daa maya dhib malaha walaal waa xoogaa waa yara ma aragtay waxban meelo kale ka fakaraayay dhib malaha waa la saarayeen mar labaad dukaankan ku soo laabtay kursi kan oo kale ku fariistay halkaas oo kale laba tilaabo kale markay qaaday hadana la dhacdo markaasaan ka daba tago waxaan ku yiraahday walaalay ummadda nabi maxamed hadaad ka mid tahay lacagtii hoo imisaad iigu geyn lahayd intaas $5 $4 waxay ahaataba hoo waa taqaado waxba ha qaada anaa geysan ilaahay khayra ku sii iska soo maya tiri maya abadan waa inaan qaadaa on shaqaystaa oo halkii aad tiri bakhaarka kale iigee aan ku geeyo walaal iida aan shaqaystaa inagoo murmaynuu yiri oo meeshii wada taagan ayaa waxaan hoos u fiiriyay hal mar lugaheeda iyo dacska ay qabto markaas waxaan arku yiri dheecaan dhiig u eg oo lugaheeda ka tifqaaya markaas waxaan ku yiri walaal maxaa dhacay dhiigu waa maxay waxa lugaha ka tifqaaya waa 2008 waa Muqdisho waa suuqa Bakaara waxa igu tiri yiri hadal wadnaha kala jaray ilaa maantana aan wali ka bogsan waxa igu tiri yiri intay xishootay oo xijaabka indhaha saaratay ay si tartiib waxa igu tiri adeer xalan umula waxaan shaqaysanayo waa caanihii ilmihii aan xalay umulay aan siin lahaa subxaanallah markaas adduun kale iyo siyaasad iyo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iyo maamul goboleed iyo makhaayado iyo guryo aan har iyo habeen ba isku dilnaa waxay tiri xalan umulay tiri dhiiga iga socdaana dawa dhiigi ka socon jiray cid kasta oo mush xalan umulay ilmihii aan xalay umulay caanahan siisan lahaa ayaan gaari gacankaas u wataa qorraxdaas iyo ciridaas aan suuqa Bakaaraha wala dhex wareegay wax walbo ku haysta oo ina haysta mar walba xusuusnoo muslimiin kale ayaan gaari intanada isku dhuuxa ah Soomaali Maxamed intanadaan guryaheena hadii dib loo baaro ehelkeena hadii dib loogu noqdo waxaan ku dhaaran karaa sheekooyin kuwaas oo kale la mid ah iyo kuwa ka xanuun badanba inay guryahanaga meel kale inta la gaarin bay ka buuxaan cid waliba dib haday isugu noqoto inay garan karto oo soo heli karto
dhowr gabdhooda xalay umaloon caana aanan u haysan caawa ilmahooda marka nimcooyinka ilaahay uu nagu galladaystay oon halkan ku fadhinno barwaaqadan iyo nabaddan وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعموينك إلهي جزاك الله خير نعموينك إلهي نقول الله ذيستي وأن هل كان ريالسن أرمينا يرين أرمى إلهي إن أقوم مهد على إنه دور ركعة أنتو كنو كليا أنا كسوكوين أو تلعبك استنقان حياة ذينا meel aan ka soo gelinaa ilaahay wadaa mahad leh saakaan nabad ku soo toosa maantaan nabad ku qadeeye caawaan nabad ku cashayn ubadkaygii iyo reerkaygiiba guri bay ii joogaan haddaysan ii jooganna meel unbay iigu nabdoon yihiin barina walwal kama qabo ilmahaygu quraacda meeshay ka heli lahaayeen gabadhayda uurka leh walwal kama qabo isbitaalkan geyn lahaa walwal kama qabo ilmahayga dhowr biloodka jirka ah walwal kama qabo bari subax دايبركي لو حر لها يعانوه عبي لها والول كما قبو أرمى الصلاة أو كليا أن نكسو كوبين وحول بأون سمينو يتلاوى كستون قادنو يمعاملات كستون بني آدم أن سئن أولا معاملونه أرمان حوق سارنا إن مر والبأفك الناقاس أيسن كردمان الحمد لله إله أذا مهدله إله أذا إيقر قاري إله أذا إسيي وحان هيستو waxaanan haysanna ilaahu adaa iga reebay intaad isiisay aniga waxa aan haysto inta aanan haysanna ilaahu iyagana wax wanaagsan oo farxad noloshooda iyo xayaatadooda u keena ilaahu ugu bedel amaana